xaaji TV Universal gaalkacyo. guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Jubbaland ayaa maanta shaaca ka qaaday in la gudagali doono dhawaan soo xulista mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo waqti kooban ay ka dhiman tahay xilliga loogu talagalay in la qabto doorashada madaxweynaha Jubbaland. wariyahayaga Mascuud Cabdullaahi Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Barre iyo xubno ka mid ah guddiga oo maalmaha kulamo la qaadanayay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. kulamadan ayaa looga arrinsanayay sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha Jubbaland. in xildhibaanada baarlamaanka ee Jubbaland ee la soo xulay ay noqdaan kuwa si dhab ah u matala deegaanada laga soo doorto isla markaana ka warqaba baahiyaha waxqabadka u baahan ee ka jira deegaanada ay matalaan ayaa qayb ka ahayd qodobada laga hadlayay shirarkan dhexmarayay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Gado iyo qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Xamse ayaa sheegay in ay meel wanaagsan marayso qabanqaabada loogu jiro xulista mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland. dadweynaha qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan la wadaagaynay processka doorashada ee Jubbaland nooca ay noqonayso iyo say u dhacayso iyo goortay dhacayso. dadweynaha waxaan sameynaynay arrintaas ayaan u fasiraynay kadibna waxa waaye consultation baan la sameynaynay oo waa kala tashanaynay waxyaabahaas waxay ku daraayeen ayagana ra'yigooday ku daraayeen iyo say u arkaan. shir dheer oo consultation ama wada tashi ayaan shalay la yeelanay waanan runtii isku soo afgaranay waan isla soo fahamnay dhammaanba wixii aan uga tagnay oo ahayd saan idiin sheegay inaan aan wacyigelinna ka samayno waxa aan wadno iyo doorashada iyo meeshaan wax marinayno isla markaana aan ayaga feedback markaan waxaas samayno ayagana ay wixii ka soo baxay runtii aan ka qaadanaynay iyo la tashigooda iyo taladooda aan ka qaadanaynay. waxaa noo soo baxday runtii guud ahaan marka la isku soo duuduubo dadka reer Jubbaland inay yihiin dad doonaya nabad inay ku dhacdo doorashadan midnimadooda inay ilaashadaan. ugu horeysay anagu aan hawshan bilownay waxaan sameynay waxa la yiraahdo roadmap yar ayaa ka hadhay xilligii loogu talagalay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha Jubbaland ayadoon wali la soo xulin mudanayaasha baarlamaanka ee lagu waday in ay soo doortaan madaxweynaha Jubbaland. waxaana guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ay ka gaabsadeen inay si rasmi ah ugu dhawaaqaan xilliga kama dambaysta ee xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland la soo xuli doono. Mascuud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo. aad buu maasan yahay wariyahayaga Mascuud Cabdullaahi Aadan. warbixinada kale ee noo soo socdana waxaa ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo dalka ka carray tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka oo bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanada Jubbooyinka ayaa helay guryihii beerihi ay ku lahaayeen deegaanada Jubbooyinka. warbixintaasi way noo soo socotaa balse markan dad badan oo Soomaaliyeed iyo culimo u diinka caanka ah gayiga Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir ayaa maanta mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa ay ka qayb galeen salaad janaasa oo loo tukanaya Allah u naxariistay Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee dalka Masar oo si dimuqraadi ah ay u soo doorteen shacabka wadanka Masar isagoo dhawaan ku geeriyooday salaasadii la soo dhaafay maxkamad ku taala dalka Masar. wariyahayaga Maxamed Cali Wehliye ayaa warkan noo faahfaahinaya. masjidka Cumar bin Khadaab oo ka mid ah masaajidda waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dukaday salaad janaasa oo jamaacada masjidka ay u tukadeen Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo dhawaan ku geeriyooday dalka Masar. dhammaan dadka ka qayb galay salaada janaasada ayaa waxay u badnaayeen culimada ugu caansan gobolka Banaadir oo maanta salaada jimcaha kadib halkaasi ku muujiyay shucuurtooda kala duwan. waa kuwan qaar ka mid ah jamaacada masjidka oo kor u sitay sawirada madaxweyne Maxamed Mursi oo la sheegayo in dalka Masar lagu dilay. waxayna inooga warameen dareenkooda ku aadan geerida Maxamed Mursi. qof kasta oo maanta caalamul islaam ku nool wuxuu ka xun yahay geerida Mursi. waa shahiid, waa madaxweyne muslima, waa madaxweyne ka qiiroonaya ama ka hadli jiray dhibaatada muslimiinta lagu hayo. qof kasta oo maanta islaamka u danqadana wadadaas la masiinaya.
maxaa maanta caalamul muslim u eg waxaan noo eg gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed ee muslimka inaan maanta iyo maalin lamida meel walba aan joogno aan ka xumaano geerida Mursi iyo sida uu ku dhintay ee gaaladu ay ku sameeyeen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan aad ugu xunnahay aan u tacsiyeenina madaxweyne Mursi oo gacan ka xaq daran dishay inagu waa dhintay ma oranayno because ninkaasi waa la dilay suna la siiyay sida la sheegay ay warbaahintu ay sheegtay aad iyo aad ugu xunnahay waan ka tacsiyeenina ilaahay ha u naxariisto masar kaliya kuma uusan dhiman wuxuu ka dhintay caalamul islaam oo dhan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ka dhintay ilaahay ha u naxariisto dhammaanteen aan u midowno diinteena aan si fiican u qabsano haddaan isku xirnaano diinteena si fiican aan u qabsano gaalada way jabaysaa cadowgeenu waay ilaahay ha jabiyo ilaahay waxaan u baryaynaa muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan in ilaahay sabr ibaan ka siiyo madaxweyne Mursi rahimahullah asagana waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sida Uthman bin Affan u shiido kale inuu shiiday ilaahay subhanahu wa ta'ala madana ugu baryaynaa Sheekh Cabdixaye oo ka mid ah culimada ugu caansan dhulka ay Soomaalidu degto gaar ahaan Muqdisho ayaa sidan waxa uu sheegay warbaahinta iyo dhammaan dadweynihii ka qayb galay salaada janaasada oo loo dukaday madaxweynihii sida dimuqraadiga ay u soo doorteen shacabka dalka Masar oo ku geeriyooday dalkaasi maanta waxaan isugu soo baxnay salaadii janaasada inaan ku tukano madaxweyne Maxamed Mursi oo dhawaan geeriyooday waxa taas keenana waxay tahay asagoo aan cadaalad helin oo xabsiga yani dhibaatadii loo geystay u geeriyooday kadibna janaazadii oo mudnaa aan ka helin wadankiisii caalamka islaamka ayaa waxaan la wadaagaynaa ducada maanta jumcada lagu baaqay in yani loogu soo duceeyo taas oo ku tusaysa yani wanaagiisii iyo qiimihiisii waxaan wadada oo isu soo baxay cid yani ama la soo kireeyay ama wax loo kala loo soo sheegay ma aha waxay ka qiiroodeen gardarrada dhacday iyo dulmiga ayaga oo ducadii la garab istaagan hadii uu janaazo wadankiisa uu ku waayay waxa ummadda islaamka oo dhan ayaa janaazo u sameynaysa annaga oo kamid ah ummadda islaamka oo shacbiga Soomaaliyeed qayb kamid ah ayaan arintaas soo imaanay ilaahay ha u naxariisto ummadda islaamka guud ahaan waxyaabaha dhibaatada haysata waa keli talisnimo oo ummadihii korka ka saaran taas oo keentay inay dadka saa u dhintaan taas oo la isku xoreeyo oo ummaddu ayadu waxeeda ay yeelato xor noqoto arintaas ay shucuubtu ay u dagaalamayaan oo ay rabaan inay ummadahooda xor ku ahaadaan Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho مسؤولين كترسن maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ka qayb galay daafurka tartanka ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada jecel kubadda cagta ee ku nool waxyaha kala duwan ee xaafadaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Cabdixasiis Ibrahim Axmed okay ayaa warkan faahfaahinaya tartanka ciyaaraha lixda waaxood ee degmada Yaaqshiid ayaa ka furmay garoonka kubadda cagta waaxda Tawfiiq degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho tartanka ciyaaraha ujeedadiisu ayaa ahayd isdhexgalka bulshada degmada iyo u diyaargarowga heerarka tartamada kubadda cagta daafurka tartanka ciyaaraha kubadda cagta waaxaha degmada Yaaqshiid waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir xubno ka tirsan maamulka degmadaasi Yaaqshiid iyo qaybaha kala duwan ee bulshada tartanka waxa uu ku bilaabay labada kooxood ee Tawfiiq iyo Heegan waxaana kubadda u laaday gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Mahad Alle gudoomiyaha isboortiska maamulka gobolka Banaadir Xasan Yabro Wiish ayaa ka hadlay tartankaasi u furmay ciyaartoyda lixda waaxood ee degmada Yaaqshiid maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa isboortiga waxa uu qorsheysan sanad walba inuu tartamo degmooyin qabto tartamadaas ka hor waxa la abaabulaa in ay waaxyaha degmooyinka wada ciyaaraan intaas oo dhan waxaa looga gol leeyahay marka laga soo tago isdhexgalka iyo isbarashada in ay ka soo baxaan ciyaartooy tayo leh oo biri matali kara degmada isla markaasna u gudbi kara gobolka ilaa heer qaran gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Cabdiweli Cabdulaahi Maxamed Shirbow ayaa dhankiisa ka hadlay tartanka kubadda cagta waaxaha degmadaasi waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha isboortiga degmada oo ku dhiiraday inuu mar walba u istaago si uu uga miro dhali lahaa wixii loo imaday sidoo kale waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Yaaqshiid oo iyadana u taagan mar walba u diyaargarowga ama soo dhoweynta martida noo timaado degmada noo timaado ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Cumar Mahad Alle Ibrahim Dheere ayaa furay tartanka ciyaaraha lixda waaxood ee degmada Yaaqshiid waxaana uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu dhiirigelinayo isboortiska
cayaaruhu waa astaanta nabadda nabaddana waa furaha nolosha haddii aan la helin nolol maxaa soo gelaya marka isboortiga in la xoojiyo oo ay tartamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u tahay astaan in dalku uu yahay nabad yahay madaxda gobolka Banaadir waxa uu horeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ka go'an inay dhiirigeliyaan isboortiga waqti iyo maalba ay geliyaan si loo helo dhalinyaro ka soo baxda degmooyinka gobolka Banaadir ilaa uu ciyaartay heer qaran. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho. burburkii dowladii dhexe ee dalka waxaa gudaha dalka iyo guud ahaanba gobolada dalka Soomaaliyeed isaga cararay dadyow Soomaaliyeed oo doonaya inay raadiyaan nolol dhaantatan ka jirta gudaha dalkan Soomaaliya ha yeeshee sanooyinkii ugu dambeeyay markii la helay ifafaalo dowlad Soomaaliyeed oo ka hanaqaada gudaha dalkan waxaa bilowday in dadkii ka cararay gudaha dalka ay dib ugu soo laabtaan gudaha Soomaaliya si ay u raadiyaan noloshii ay awal hore ka carareen jubbooyinka waxay ka mid tahay meelaha iminka ay dib ugu laabanayaan dadkii ka cararay burburkii dowladii dhexe ee dalka haddaba warbixintan soo socota wariyaheena magaalada Kismaayo Mascuud Cabdulaahi Aadan ayaa waxa uu ku eegayaa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa dib ugu soo laabtay ay deegaanada jubbooyinka ka heleen beerihii iyo guriyihii ay awal hore ka carareen kadib burburkii soo gaaray dalka Soomaaliya 1991 waxaa jira dad aad u fara badan oo iskugu jira Soomaali iyo ajnabi kuwaas oo iskaga baxay dalka Soomaali fara badan ayaa galay dalka dibadiisa waxaa sidoo kale jira dad lagu magacaabo Arab Soomaali kuwaas oo deganaa dalka Soomaaliya isla markaana ku lahaa hanti iyo maal aad u fara badan waxayna ka mid noqdeen dadkii ka barakacay dalka dhowrkii sano ee ugu dambeysay Soomaaliya oo nabadeedu ay soo hagaagaysay ayaa sababtay in qurba joog Soomaaliyeed oo dalka ka baxay 1991 iyo dad badan oo hanti iyo maal ku lahaa in ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya si mar kale ay u maalgashadaan beesha Arab Soomaali waa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxay degaan degmooyin badan oo dalka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan magaalada Kismaayo Baraawe Muqdisho Hargeyso iyo magaalooyin kale Kismaayo hadda waxaa ku sugan ugaaska beesha Arab Soomaali asagoo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna kala hadlay sidii beesha Arab Soomaali oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana ay uga heli lahaayeen xaq ay ku leeyihiin in ay ka qayb qaataan siyaasadda iyo dib u dhiska dalka wadanka waxaan joogaa muddo dheer waxaan soo galay 2013 ayaan imid magaratay dowladda Jubbaland aad ay noo soo dhaweysay wax kastone diyaarayna la ahayd annagana waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaano mujtamaca ku nool Jubbaland nabadda aan ka faa'iideysano awal annagu waa ka maqneen meeshaan dowladda Jubbaland ina meeshaan ka maqanahay way ogeed oo waana la tabaayay waana la sugayay marka nimidna annaga wax dhibaato ah meeshaan kuma arkin waana la soo dhaweeyay dowladda Jubbaland aad bay noo soo dhaweysay oo madax ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam si fiican uu nagu soo dhaweeyay marka magaalada waxaan dareensanahay nin macnaha oon ka tagin inaan ahay oo weligiisa joogi jira oo marna ka tagin ka maqneen dowladda way og tahay inaan dad jiraan weligeena aan jiri jirnay magaaladan oo macnaha taariikh weyn ku leenahay magaaladan kaligeeda ma aha ee Jubbaland ma aha Soomaaliya dhan beesha Arab inay taariikh ku leedahay taariikh qoto dheer waa la og yahay marka waana la sugayaa sanadkan waxa way annaga waxaan rabnaa inaan gobolka Jubbaland inaan wax ka dhigno wax daro macnaha xildhibaanadeena wasiiradeena waxayna dhan inaan dowladda waana noo ogashay wax inoo diidan tahay male inaan soo dhacsano waxaan ku maqneen kaliya inaan ka soo qayb galno haddana qaybgalkeena waa loo jeedaa wuu muuqdaa aniga intaan joog hadda magaalada Kismaayo waa wax yar waa Oktoobartii hore ilaa hadda waxqabadkayga aniga inkastoo aniga inaan isfaali aan ahayn waa loo jeedaa waxqabadka beesha Carbeed ay qabteen waana soo socdaa aad bay soo socdaan hami weyn ayay u leeyihiin inay ku soo laabtaan wadankooda maadaama ay nabad fiican ka jirto oo xuquuqdoodana la siiyay annaga magaalada dadka oo yaqaaniin beesha Arab Soomaali oo si fiican u yaqaaniin markayna arkaan magaalada annagoo wadooyinka socono way nagu farxaan waxay leeyihiin Allah dadkii ka maqnaa ayaa wadankii ku soo laabtay nabadaba sideeda waxay ku fiican tahay in
meesha macnaha qof kasto xuquuqdiisa la siiyo annagana markaan nimid hadda xuquuqdeena waa helnay oo guryaheena waa helnay beeraheena waa nala soo celiyey ma gartay wixii yar maqanne waa soo noqonayaan laakiin waxaan ku sheegayaa annaga meeshaan weligeenaba kama aan maqnaanin haddaanna ka tagnay waa la xiriiri jirnay oo macnadada noo joogay oo la soo xiriiri jirnay waxoo dhan la socon jirnay dowladda bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland ku dhaqan waxaan ugu baaqi lahaay nabadda oo Jubbaland jirto inay ka faa'iideystaan ma garatay nabad baa macnaha naas la maala leh ma garatay marka nabaddu annaga aad iyo aad ayaan u taabanay Mas'uud Cabdullaahi aadan TV Universal magaalada Kismaayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay mar hore in duqeyn dhanka cirka ah lala bartilmaameedsado xarumaha ciidamada oo ay ku sugan yihiin ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa goordhow war ka soo baxay Donald Trump waxa uu si rasmi ah ugu shaaciyay in uu ka laabtay go'aankaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa meelmariyay Khamiistii shalay oo ahayd in weerar lagu qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran balse Donald Trump ayaa dib uga laabtay go'aankaasi sida saraakiil ka tirsan Washington ay u sheegeen warbaahinta dalka Mareykanka wargeyska lagu magacaabo New York Times oo soo xiganaya saraakiil military ah ayaa qoray in Donald Trump uu amray in la weeraro baraha kontroolka ciidamada amniga dalka Iran gaar ahaan goobaha ay yaalaan raadarada lagala socdo hawada iyo saldhigyada gantaalaha la dhigo Trump ayaa amarkan lagu weerarayo Iran dib ugu laabtay waxaana wargeyska Washington Post iyo warbaahinta lagu magacaabo ABC ay iyaguna tabiyeen qaar ku aadan qabarka ku aadan arintaasi iyaga oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka warkan ayaa imaanaya saacado un kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ay soo rideen diyaarad nooca wax basaasta oo ay leeyihiin militariga dalka Mareykanka maamulka Donald Trump ee Washington ayaa dhanka kale ka gaabsaday in uu ka warbixiyo arrinka soo riditaanka diyaaradaasi iyo in kale warkii caalamka oo aad ka daawanayseen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho annaga intaa waxaa idiin waramayay anigoo ah Cumar Maxamed Soomane tan iyo kulan dambe hadduu Ibraale ka noqdo intaan dib ugu kulmi doono war midkan ka xiiso badan waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo